haweeneydana lagu magacaabo Ala Saalax da'deeduna tahay 22 sano jir ayaa astaan u noqotay kacdoonka xilka lagaga tuurayo madaxweynaha xilkiisu 30 sano jirsaday ee dalka Suudaan Cumar Xasan al-Bashiir. farshaxaniistayaasha dunida ayaa si weyn sawiradeeda Ala Saalax ugu baahiyay baraha bulshada iyagoo halkudhig uga dhigay 22 jirkii kacdoonka Suudaan. Ala Saalax ayaa hoggaanka u haysta kacdoonka Suudaan ka dhacaya iyadoo goobaha ay ka socdaan banaanbaxayaashu si weyn looga dheeganayo iyadoo safka hore kaga jirta isla markaasina dhalinyarada iyo banaanbaxayaasha reer Suudaan ku dhiirigelinaysa inaanay ka daalin kacdoonka xilka lagaga tuurayo keligii taliyaha 30 sano jirsaday xilkiisu. waxaan aad ugu faraxsanahay in sawirkayga ay dadku ku ogaadaan kacdoonka Suudaan. ilaa bilowgii kacdoonka ayaan maalin walba banaanbaxayay oo aan ka qayb qaadanayo banaanbaxyada sababtoo ah waalidkaygu waxay u sare kaceen inaan jecelahay xornimada, ayay tiri Ala Saalax. kacdoonada lagaga soo horjeedo Cumar Xasan al-Bashiir ayaa bilaabmay bishii Diseembar laakiin waxay xoogeysteen dhammaadkii toddobaadkani kadib markii dad badani ay isugu soo urureen meelaha isgoysyada ee ku yaala meel u dhow garoonka militarigu ku xoogan yahay ee bartamaha Khartoum. Ala Saalax ayaa sheegtay inaysan ka soo jeedin asal siyaasadeed waxayna qaadatay wadooyinka loogu dagaalamayo in xilka lagaga tuuro nidaamka keligii taliska ee dalka Suudaan. wadankeenu waxa uu ka sareeyaa xisbiyada siyaasadda iyo hayb kasta oo kooxeed, ayay tiri. maalintii ay qaateen sawirka waxaan u tagay 10 kulan oo kala duwan oo aan ku akhriyayo gabayada kacaanka waxayna dadku dhageysanayeen aadna u xiiseynayeen. bilowgii waxaan helay koox ka kooban haween waxaana bilaabay heeso waxayna bilaabeen inay ku dhiiradaan inay haystaan aniga. markaa kulanku waxa uu noqday mid aad u weyn. waxaan ku tababaray jaamacadda xeeladaha gabayga ee akhristaan. xabaddu ma dili doonto, dilalkuna waa aamusnaanta dadka. waxay caan ku tahay mudaharaadada waxayna ku dhawaaqayaan mudaharaadayaashu bishii Janaayo ee sanadkii 2019 ilaa iyo dagaaladii Sebtembar ee 2013. Ala Saalax hooyadeed ayaa nashqadayso casri ah oo ka shaqeysa warshada dharka ee Suudaan. dharka ay ku xardhan yihiin sawirada dharka ayaa waxa uu calaamad u yahay dibadbaxayaasha dumarka. Ala Saalaxna waxa ay sheegtay inay xagjirnimo lagula dagaalamayo ay ka baxsatay kadib markii ay xidhatay dharka dhibaatadii hore ee mudaharaadadii kal hore. xaqiiqadu waxay leedahay nooc ka mid ah awoodda waxayna ina xasuusinaysaa Kanadaakis, ayay tiri Ala Saalax. Kanadaakis waxay ka mid ahayd mid ka mid ah boqortooyadii Nubi ee Kushi taasi oo xukuntay wax badan oo ka mid ahaa waxaa hadda Suudaan casrigani ah in ka badan 3,000 oo sano ka hor. falanqeeyayaasha qaarkood ayaa walaac ka muujinaya tixraaca uu yahay mid ka mid ah jaaliyada badan ee qabaa'ilka Suudaan iyo taariikhda Nubi oo ay si gaar ah ugu caan tahay qurbo-joogta Suudaan, waxaana dadka ka reebay dad badan inay ka mid ahaayeen jaaliyada dalka Suudaan. Ala Saalax ayaa sheegtay inay hadda tahay inay ku nasato codkeeda iyadoo cunaheedu uu ka cadhaysiiyay dhammaanba fariimaha ay u dirayso xukuumadda Suudaan. Cumar Xasan al-Bashiir ayaa iscasilay kadib markii ciidamada militarigu ay la wareegeen talada dalkaasi. Ala Saalaxna waxa ay noqotay qofka hoggaanka u haya kacdoonka dalka Suudaanta waqooyi ka socday.